qoysaska Soomaaliyeed waxay ahaayeen qoysas markaan wadanka joognay kala dambeey ahaayeen aabaha mas'uul oo lahaa hooyadana mas'uul ay lahayd ilmahana kulli iyakana mas'uuliyad lahaayeen laakiin hadda markii inta la yimid waxa u nimid mujtamac wax yar naga xadaariysan haddaan iraahdo maxaa yeelay waxay soo mareen xadaarad badan kala duwan ay soo mareen meesha ay maanta taagan yihiin waxaad moodaa meel hoogaa naga horeyda waayo oo micnaha muddo badan ay mataqaana u socdeen marka inta markaa nimid annaga dhaqan dhisan oo macnaha muddo soo jiray oo process badan soo maray aan dhaxda uga soo dhacnay dhaxda markaan uga soo dhacnay waxay koosgareeday marka inaan annagii dhexdeennii aan ku burburno aan la qabsan la'nahay aabihii hooyada ha noqdaan naftigooda isfaham waaya ka imaanayo bacdama aabihii mas-uuliyaddiisa meesha ay ku gaabatay aabihii marka hore mas-uul uu ahaa xooggiisa hooyada aabahii sugi jirtay guriga markay joogto aabahu waxa mas-uuliyadda iskale banaanka kasoo xamaali jiray wixii reerkay u baahan yihiin banaanka keeni jiray saasay hooyadana waxay loo keenay iyadana mataqaanaa masruufi jirtay mataqaanaa hay'ada tadbiirinayday ilmahana meesha loo kala diray aadi jireen mujtamac wuxuu ahaa marka saliim ah oo wada fiican oo toosan ku socdo laakiin inta markaan nimid waxaan soo dhex galnay bulsho naga dhaqan duwan wax yarna naga dhaqan horeedoo micnaha xadaaradooyin badan oo kala duwan soo mareen annagana markaa dhexda uga soo dhacno marka waxay keentay inaan xaggiina kasoo tagna kayni midkaa naga horeeyo advancega ah meer advance ana waa la qabsan weynay marka waxay sababtay inaan dhexda ku dhacno oo mataqaana annaga aan dhexda ku dhacno taas waxay keentay marka aabihii hooyada inay isku dhacaan oo conflict joogtaa ka yimaado ilmihii iyo waalidkii inay isfahmi waayaan oo iyaka naftigooda mataqaana hay'adeen dhexdooda khilaaf ka dhaco marka mas'uuliyad waxay noqotay macnaha burbur weyn ayaa ku yimid qoysaska Soomaaliyeed arrinta ah guurguurista waa arrin aad u soo noqota ama nabar ku noqotay bulshada Soomaaliyeed amaba caado u noqotay bulshada Soomaaliyeed way waxaad arkaysaa family ka guuriya Norway dalkan ku noolnahay u guuriya Ingiriiska dad baa arkaysa Ingiriiska soo guuraya u soo guuriya Sweden ama Norway Holland baa laga dhoofaya waxa loo socdaa hadduu la ku roon yahay Ingiriiska la tagaya walla dadkii waxaad moodaa inuu arrintii taariikhiga laga warrami jiray ahaa reerku reer guuraa geel jiray Soomaalidu tahay tii baa la wadaa laakiin taasi waqti iyo wadan bay lahayd u gaar ay caado u leedahay because qofku ninka reer baadiya iskama guuri jirin sabab ku guuri jiray sababtana waxay ahayd ninkan nolosha uu ku nool yahay waa xoolahaas xooluhuna waa inay daaq helaan daaqana hadduu Ethiopia galan Ethiopia la tagi galbeed buu ka digay galbeedka la tagi bari buu ka digay bariga la tagi laakiin taas tu ka duwan baan anagii ku nool lahay wadan ay facility-giisu fudud yahay oo wax walba aad guriga ay ku yaalaan opportunity ama chance-kiiba albaabka ku soo garaacay waan joognaa laakiin muhiimada waxa sidee looga faa'iideysan karayaa reerka markii ay geliyaan waqtigoogiiba wadan buu ku noolaanayaa wadan buu degay 5 sano 6 sano 7 sano ugu horeysa uu samraya Soomaali inta uu sharciga ka qaadanayo wadanka guuraa ma jiro dhammaan maalintay 7 sanadood 8 sano u dhamaato ay wadanka sharci weyn helaan ay istaabiin noqdaan bay socodka markaas u bilaabanaya hagee ka shidan tahay imika xagga noorar xagga nagay 3-4-5 wadan buu min 2 sano 3 sano soo degnaanaya ugu dambeyntiina halkii ku guuru ku soo noqonaya marka maxaa natiijo ka dhashay bal dib u soo eega oo ilmihiinii eega ilmaha yaraad dhashay weydii waxa ku tahay aabo luqadu garanayo ama aqoontu garanayo bal weydii maskaxdiisu ma fadhido 10 luqadood kala duwan buu ku hadlayaa oo qeybiba uu ka haystaa rubuc Soomaaliga haba sheegin inta culaysana waxa uu sababa waalidkii oo dhaqankii awooyaalkood la yimid galbeedka دورك أباس ومالد أوليه إنه دور يرمى دور آدي آد وين واي
wadankii markii la joogay waxay ahayd doorkiisa doorka ugu weyn ee mataqaanaa oo aabaha uu lahaa markii hadda qurbaha la yimid oo meelahan qurbaha la yimidna waxa waaye doorka aabaha waa jira inkastoo wax yar mataqaanaa waxoogaa hoos u dhacay maxaa dhacay mas-uuliyadiisi xagga markay jirtay inta wax yar waxaa moodaa in khilaaf yar soo dhexgalay wax kalena ayna ahayn waxaa waaye dhaqamada kala duwan ee jiro awgeeda aniga aan ku sheegi karaa inay tahay sababtaas marka aabaha Soomaaliyeed laf dhabarkii uu ahaa reerka mataqaanaa marka horena soo dhisay reerka dhisayay markii reerka ay dhismaanna haddana sii wadayo udubka u hayay marka doorkiisa door weyn oo aad iyo aad aan la koobi karin waayo waana door aad iyo aad mataqaanaa muhiim u ah loona la baahan yahay aaba kasta oo Soomaaliyeed mataqaanaa in uu doorkaas ka soo baxo ka warheynta ilmihiisa ha noqoto maxaan ku raahdaa ilmihiisa loo tarbiyay lahayaa soo galeedo ilmihii ilaahay duu ku roon yahay ma aragtay si wax loo bari lahayaa soo galeedo marka aabaha markasta waxaa la rabaa inuu fuurjignaado weli kuma sii jirto markii aan joogno wadamadan qurbaha westernku aan joogno oo dhaqankeena dhaqan aan ahayn aanu nimid in waxaa la rabaa aabaha xataa naftigiisa intii karankiisa ahayd oo qabi jiray oo lahaa inuu laba jibaaro waa markaan oo kale taxadarna u ahaado oo aad iyo aad foshigti u ahaado sababta ay tahay waxaa waaye dhaqan kale aan la joognaa si ilmahayna u tarbiyay lahayn ku duwi lahayn dhaqankeennii islaamiga ahaa iyo dhaqankeena mataqaanaa kultuurka annaga aan lahayn aan ku duwi lahayn aabaha markasta inuu fuljignaado waayo maaha mataqaanaa in ilmihii inta meeshaan la keeno ilmaha inta ikuu joogo aabaha uu iskaga dhaqaaqa haddii kale aabaha oogaa ka lug jiido haddii kale xoogga kaalintiiba uu siiyay mataqaanaa gabadha siiyo midda kale gabadha naftigeeda markay inta joogto caawinaada u baahan tahay kaalmay u baahan tahay ka warheyna u baahan tahay keligood laguma day karo marka aabaha doorkiisa door aad u weyn waay kii wadanka usoo joogay kana kasii adag weli oo kasii mataqaanaa hayahedee maxaan ku rahdaa kasii mataqaanaa hayad baaxad weyn marka waxaa loo baahan yahay aabaha markaana inuu mataqaanaa tii u qabanayo oo laabo oo markastana fuljignaado taxadarna ahaado sabab badan baa keeni kara in qofkii uu waxbarashadiisii dhammaystiri karan waayo ama uu iskuul tegi kari waayo duruufta ugu horeysa waxaa ka mid ah dadkii oo wada dhaqaalo doon ah oo kasoo tegay wadan dagaal ka socdo oo 20 sano burbursanaa marka loo eego dhalinka qofka dhalinyarta ay soo tahriiba ay nolol adag soo gala waxyaaba ugu horeeya uu focus ku saaro waxaa ka mid ah ama uu aqligiisuba ka guuxaya inuu ugu horeyn dhaqaale sameeyo sidoo uga saaro bulshadii uu ka soo tagay dhibaataysnayd ama ku jirtay xiriyaha qaxootiga iyo wadamada Afrika ama wadamada Carabta jaarka markaad eegto qaybna waa qayb wadanka ku dhalatay oo tiradoodan aad loo qiyaasi karayn waa qaybta kaliya iminka la tilmaami karay ka faa'iiday jaamacadaha wadanka iyagu percentage-gu aad u yar yahay waxaa laga yaabaa tirada ay Soomaalidu ku joogto wadanka ee 15,000 aan ku idinku sheegay inay waxaan 100 ama 250 dhameyn arday inay ka dhigtaan jaamacadaha wadanka oo dhan dalka Norway ku yaala taasina waxaa sabab uga bulshada Soomaaliyeed waalidiinta dan dib ugu noqdo dad aan moogtahay aqoontooda marka percentage loo qiyaaso aqoontooda background-ka aan aqoon ahaan dhisnayn dadkuna laba nooc bay qurbaha markay imanayaan laba nooc baa dadku aad loo ay moogtahay qurbaha looga yaqaanaa qofku waa laba inuu noqdo ama inuu qofku noqdo muruqmaal ama inuu qofku maskax maal muruqmaal waxaa la yiraahdaa qofka xoogiisa isticmaala ay shaqaysta moogtahay qutliyoomkiisa soo saartaa dadkii uu ka yimid ayna wax ku carfaca maskax maalkuna waa ninka aqoonta leh ee aqoontiisu ay meel mariso ama u baahdo inuu boorka ka jafo in yar oo aqoontiisii background ka ahayd laakiin bulshada Soomaaliyeed markaad eegtid waa nation aanan jirin isku celceliskoogii 60 sanadood aan xorriyad haysan 60 aan xorriyad qaadanay isku celcelis 90